bismillaahi raxmaani raxiim waxaanoo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa 3 bisha juun sanadka 2026 maalin arbaco ah waxaan ku hormarayaa magaalada Gaza tan iyo 2023 markii ugu horeysay imtixaanada dugsiyada Al-Azhar ayay maanta u fariisteen ardada dhiganaysa dugsiyadaasi xarumaha kala duwan ee daanta galbeed iyo sidoo kale marinka Gaza sida warbixinta lagu sheegay. tani waa dhacdo kale oo taariikhi ah oo rajo gelinaysa qoysaska iyo ardada ku nool gudaha magaalada Gaza maadaama imtixaanada dugsiga sare ee Al-Azhar markii ugu horeysay la galayo wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar markii dagaal ay gashay magaalada Gaza ama dagaal ay ka dhaceen magaalada in ka badan 450 arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa maanta u fariisanaya imtixaanka. dhismaha burbursanaado xaaladda si kasta ay noqotaba waxay galayaan imtixaankan oo laga keenay gudaha dalka Masar waxaana lagu waramayaa in imtixaankana lagu sixi doono gudaha dalka Masar maadaama dugsiyada Al-Azhar ay hoos tagaan jaamacadda ku taala magaalada Qaahire ee caasimadda dalka Masar. sidoo kale waxa wararku ay sheegayaan in imtixaanadan laga galayo ilaa daanta galbeed iyadoo oo daanta galbeedna imtixaanadu ay galayaan xilli dadka deegaanka ay la kulmayaan dhacdooyin ah in dadkii Israa'iiliyiinta ahaa ee halkaasi lagu deegaameeyay ee guryahoodii xoogayaan dhismayaal kale ay gubayaan xilli Israa'iil ay doonayso deegaameyn cusub oo ilaa 2,000 oo deegaan ah ay ka sameynayso dhanka iyo daanta galbeed. dhacdooyinkii ugu dambeeyay la diiwaan galiyay waxaa qayb ka ahaa in dad shacab ahaa oo Israa'iiliyiinta ciidankooda taageero ka helaya ay gubeen dhismayaal shacab ay lahaayeen oo daanta galbeeda xilli isku dayeen deegaanadaasi inay la wareegaan. gudoomiyaha macadka Al-Azhar ee Falastiin ama qaybta Falastiin Dr. Ali Rashid Al-Najjar ayaa waxa uu dhacdo taariikhi ah ku tilmaamay imtixaanadan sida isku marka ah maanta looga galay daanta galbeed iyo sidoo kale magaalada Gaza. waxaanu yiri waa guur weyn oo ardada u soo hoyatay xilli ay marxalad adag ay wajaheen labadii sano ugu dambeysay imtixaanadana aanay gelin sabab la xiriirta xitaa iskuulada aysan xaadirin sabab la xiriirta dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay gudaha magaalada Gaza. sidoo kale caqabado badan ayuu sheegay in ay ka jireen magaalada Gaza. waxa uu sheegay in guddiga gargaarka ee dawladda Masar ay ka shaqeynayeen magaalada Gaza inay bixiyeen basaska lagu qaadayo ardada si ay xarumaha imtixaanada ay u tagaan maadaama ku dhawaad kala bar ardada imtixaanaadka galaysa yihiin dadkii laga soo barakiciyay waqooyiga magaalada Gaza kuwaas oo hadda ku nool dhanka koonfureed ee magaalada. yani gawaaridooda ay ku taageerayaan si ardada imtixaanaadka waqtigooda ay ugu tagaan. mas'uuliyiinta waxbarashada waxa kale oo ay sheegeen in adkaysiga waxbarasho ee tooska uu yahay fariin muujinaysa adkaysi go'aan iyo in bulshada magaalada Gaza aysan ka quusan waxbarashada inkastoo ay wajaheen duruufo aad u adag muddadii dagaalka uu socday ilaa iminkana ay wajahayaan dadka qaarkii maadaama ay adag tahay inay dhaqdhaqaaq ay sameeyaan. Israa'iil weli waxay sidaas oo ay tahay ee wadada duqeymo ay ka fulinaysa magaalada Gaza iyada oo la beegsanayo waqooyiga koonfurta iyo sidoo kale bartamaha waxa sidoo kale wadaan isballaarintooda iyada oo saldhigyo cusub iyo xarumo ka sameysanaya gudaha magaalada Gaza. macluumaadkan iyo imtixaanka waxyaabaha ka soo kordhay barnaamijyadeena kale ayaan kugu wadaagaya insha Allah like muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay. markaan aan eegno dagaalka Iran iyo sidoo kale Mareykanka. muuqaalkan waxaa soo bandhigay arbacada maanta ah ciidanka ilaalada kacaanka ee dawladda Iran waa gantaaladii ay waabarigii maanta ilaa xalay saq dhexe ay ku weerareen qaybo badan oo kamid ah dalalka Khaliijka si gaar ahaaneed ee dalka Bahrain iyo Kuwait iyo sidoo kale dalka Iraq. waxaana ay sheegeen muuqaalka gantaaladan inay yihiin kuwo ay kaga jawaabayeen weerar dawladda Iran ay la kulantay. haddaba aan kula wadaago marka hore halkay sheekada ka bilaabatay maxaa Iraaniyiinta ka careysiiyay maadaama maalmihii ugu dambeeyay wax kasta oo loo geystay jawaabteeda ay bixinayeen Iraaniyiinta. dawladda Iran waxay sheegtay inay la kulantay 2 weerar. mid kamid ah waxa lagu qaaday mid kamid ah maraakiibta shidaalka qaada ee dawladda Iran xilli uu ku sugnaa marinka Hormuz loo yaqaano. markabkaasi sida sawiradiisa oo la helay ay muujinayaan qaybaha hore ayuu ka gubtay gaar ahaan qaybta motorka waxaana taas ay keentay fariin digniina dawladda Iran inay u dirto Mareykanka. inta wixii ka dambeeyay Iran waxay mar kale la kulantay weerar. wuxuu Mareykanka u weeraray jasiiradda Qashim lagu magacaabo ama Qashmi jasiiradan oo muhiim u ah dawladda Iran marka marinka Hormuz la joogo dhanka shidaalka iyo dhoofintiisa marka la eegana dawladda Iran ahmiyad gaar ahaaneed ayay jasiiradan ay ugu fadhidaa. wixii marka ka dambeeyay marka Iraaniyiintu way xanaaqeen waxaana ay go'aansadeen inay jawaab cad ay bixiyaan iyaga oo beegsaday sida ay sheegeen maraakiibta Mareykanka ee ku sugan gobolka gaar ahaan biyaha Iran u dhow iyo saldhigyada Mareykanka ee dalalka Khaliijka si gaar ahaaneed Kuwait, Bahrain iyo sidoo kale Iraq.
maraykanka isagana wuxuu sheegay in jasiiradda qashim uu beegsaday goob sida la sheegay ay yaaleen sida iyagaba ay sheegeen gantaalo iyo diyaarado daroonisa kuwaasoo inta badan lagu weeraro maraakiibta dagaalka iyo kuwa ganacsiga ee ku sugan biyaha marinka hormuz iyo hareeraha biyaha dowladda iiraan. waa sida maraykanka uu inoo sheegay. aan eegna markaa saddexda wadan ee iiraan ee weerartay iyo dhacdooyinka laga diiwaangeliyey. dowladda kuwait qoraal ayay soo saartay maanta, waxaana lagu sheegay qoraalkaasi inay waxyeelo gaartay terminal 1 garoonka diyaaradaha ee dalkaasi kuwait oo magaalada Kuwait City ku yaala. waxaana la sheegay in waxyeelo yar ay soo gaartay inkastoo faahfaahin aan laga bixin kadib markii diyaarad daroonis ay halkaas ay ku qaraxday. laakiin maraykanka wuxuu yiri gantaaladii Kuwait lagu weerarayna waan ka hortagnay, kuwii Bahrain lagu weerarayna waan ka hortagnay. Bahrain waxaa ku yaala saldhigga ciidamada badda ee dowladda Maraykanka ee ugu weyn gobolka Bariga Dhexe. maraykanka halkaasi ciidan badan iyo maraakiib ayaa kaga sugan. Iiraan waxay sheegtay iyagoo ka jawaabaya markabkii Hormuz lagu bartilmaameysaday in iyagana ay weerareen maraakiibta maraykanka ee biyaha ee gobolka ku sugan iyo biyaha Bahrain ama yani saldhigga maraykanka ee dalkaasi Bahrain. waxyeelo lama diiwaan gelin, faahfaahin dheeraadna lagama hayo Bahrain iyo waxyaabihii ka dhacay. laakiin muuqaalo ayaa la soo bandhigay oo muujinaya qaar ka mid ah diyaaraduhu inay ku qarxeen xaafadaha ku yaala gudaha dalkaasi, gaar ahaan magaalada caasimadda iyo agagaarka saldhigga maraykanka uu ku leeyahay dalka Bahrain. Iiraan sidoo kale waxay sheegtay inay beegsatay saldhig diyaaradaha helicopters ay maraykanka u yaalaan, waxaana loo badinayaa inuu yahay saldhig ku yaala magaalada Erbil oo gudaha dalka Ciraaq. inkastoo faahfaahin dheeraada ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan aanay bixin. marka la eego dowladda Iiraan waxay shaaci ka qaaday maraakiibtii shidaalka u qaadaysay ee la beegsaday inay u jawaabeen haddii weerar sidaas oo kale la kulmaana ay ka jawaabi doonaan. sidoo kale dowladda Kuwait waxa ay leedahay qaar ka mid ah diyaaradaha droniska waxay ku qarxeen dhismayaal ay dad shacab ah ay deganaayeen. maraykankana wuxuu taagan yahay dhammaan diyaaradahaasi waan ka hortagnay waana soo ridnay. sidaa daraadeed Iiraan waxay taagan tahay waxaan weerarnay saldhig maraykan uu leeyahay, gaar ahaan saldhigga ugu weyn ee ciidamada badda. waxaan weerarnay markab cadowga uu leeyahay iyo saldhigga maraykanka maadaama lagu xadgudbay bay yiraahdeen marinka Hormuz iyo agaarkiisa jasiiradii aan ku lahayn iyo markabkii ku sugnaa. markaad eegto dhinacyadan waxaad moodaa inay labada dhinac is ugaarsanayaan. dagaalka miyaa la doonaya in dib loogu laabto? maraykanka gaar ahaan madaxweyne Trumpna arrinta dagaalada iyo wadahadalada waa uu ka hadlay. qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo dadkii hore ula soo shaqeeyay Trumpna isaga ay ku eedeynayaan inuu ku dhacay dab inuu isla isaga isu dhigay. dowladda Iiraan qoraalkeedana waxay ku leedahay jawaabta weerarkan waxay noqon doontaa mid socota ama yacni mid joogta ah. haddii weerar aan la kulanno kamana baaqsan doono inaan mar walba ka jawaabno weerar ama gardarro cad oo maraykanka iyo Israa'iil inooga timaada. waan arki doonaa wax walba oo ka soo kordha. dowladda Bahrain waxay leedahay 3 gantaal ayaa nooga yimid dhanka iyo dowladda Iiraan iyo sidoo kale qaar ka mid ah diyaaradaha daroonisa. waa weerarkii ugu cuslaatan iyo 8 Abriil heshiiska markii la gaaro dowladda Iiraan ay ku qaada qaar ka mid ah dalalka Khaliijka. mar way dhacday dhowr jeer inay Imaaraadka iyo dalal kale ay diyaaradaha daroonisa ay ku weerarto, laakiin kani wuxuu ahaa midkii ugu xooganaa oo la mid ah yani xilligii dagaalka lagu jiray oo kale si isku mid ah in dhowr dowladood oo Khaliijka ku yaala ama wadamada Carabta inay si toos ah u beegsadaan Iiraaniyiinta. xiisadu weli way jirtaa, dadaaladii iyo wadahadaladii diblomaasiyadeed way socdaan. awood ahaan waa la istijaabinayaa. waan arki doonaa cidda ku guuleysata istijaabintan iyo sidoo kale in haddii lagu guuleysto wadahadalada toos in lagu heshiiyo. wax walba oo ka soo kordha si aad uga mid noqoto saaxiibada hela ku sabir kanaalkeena, like san muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada. waad mahadsan tahay.